عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada ku xiran janalka horumarkeena YouTube hada janalka ku cusub tahay subscribe saar muuqaalka arinta ku saabsan shahaadatu zuurnimadu waa in been laga marqaati kaco. shahadu zuur wa ash-shahidu bil kadhib qofka beenta ka marqaati kaca ayaa waxa la yiraahdaa shahidu zuur. shahadatu zuurnimaduna waa ka marqaati kicida beenta laga marqaati kaco. qofku waxaysa ogeyn ama isa hubin amaba ay ogtahay inay been yihiin inay ku dhiirato inay ku marqaati kacdo marqaati ka furto wax been ah ayaa shahadatu zuurnimo ah waana kabaa'irta wax kamid ah. ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala fajtanibu zuura fajtanibu ar-rijza min al-awthani wajtanibu qawla az-zur. ar-rijza min al-awthan waxyaabaha qurunka oo asnaamta kamida ka fogaada sidoo kale qawlu az-zurna ka fogaada. qawlu az-zurka waxa la yiraahdaa hadalka beenta waa nabiguna kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir kaba'irta waxa ugu waaweyn ma waan idin sheegay. kadibna nabigu wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam al-ishraaku billah wa uquuqul walidayn wa kana muttaki'an fajalas. markaas nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam ala wa shahadatu az-zur ala wa shahadatu az-zur ala wa shahadatu az-zur. ila saxaabadu ay dheen markii dambe waxaan niri laytahu sakata nabigu ma aamuso waa idin gaarsiiyay wixii la rabay inuu idin gaarsiiyay. wuxuu ku celcelinayay nabigu kaleey salaatu wasalaam xumaanta shahadatu zuurnimadu ay leedahay. marka kabaa'irta kugu waaweyn ay kamid tahay shahadatu zuurnimadu. qof walba marka hadaad marqaati kacayso waxaad ka marqaati kacay oo han noqdeen waxaad u hubto sida qorrax banaanta alla oo kale waxaad ugu jeedo ka marqaati kac. wax shaki kaaga jiro ha ka marqaati kicin iska daa waxaad hubto inay been yihiin aad ka marqaati kacdeen. dadka noocaasuna waa dad dambi weyn ilaahay ka galay ilaahayna ka fogaaday kana dheeraaday. inta badanna maxkamadaha waa ag joogaan ayaga iyo looyarada qaar kamid ah ayaa heshiisa looyarkan markii la heshiiyo iyo qareenkan lagu heshiiyo inuu doodan taabageliyo ama doodan uu ka qayb qaato ama qofkan iyo shirkadan uu qareen u noqdo wuxuu rabaa looyarnimadiisu inay guuleysato. markaas wuxuu u raadinaa qofkii marqaatiyaal been ah oo marqaati beenayaal ah oo caloosho u shaqeystayaal ah oo shayaatiin ah oo mujrimiin ah. markaas xoogaana siina marqaatigana ka cawleeyahay ama waxba u ballan qaado wuxuu leeyahay hadii lagu guuleysto hawshan hantida waxbaad ku leedihiin. markaasay maxkamadda soo istaagayaan markaasay waxay leeyihiin waxaan marqaati ka nahay in hebel dhulkan iska leeyahay ama hebel iyo hebel ay saas ahaayeen wixii ninka kale ku dooday ka marqaati kacaya. caloosho shaqeystayaal waa marka nimanka soo mujrimiin. qudaadana waxa waajib ku ah haday dareemaan qofkaas inuu yahay qof marqaati beenaala ah inay tacsiiraan oo yaraan xabsi iyo xarig lagu rido oo la xiro umada laga qabto. qudaada in badan oo kamid ah xilligan joogaahina ayaga laftirkooda allo sahal iska ah oo waxba laga yaabaa laftirkoodu inay laaluush wax ka qaadayaan oo ay leeyihiin hadaad rabto inaad guuleysato marqaatiyaasha iska soo dhis oo hadaad anka weydo kuwa runa kuwa beena raadi. markaad kuwa beena raadido aan wax kula qaban karaa marqaati keen been baa ahaade anu nin ceel u raaho kala nahay qaaliga dhaha hadbana wadaanti ceelka lagu soo ridaan anu biyo ku shuba hadii wax bila marqaati aad keento xukunka aan wax ku xukuma xukun qaawan oo ceebaho noqona marka ay asturo marada ay gali lacagtana isi waxyaabaha ugu astureen waxaad kamid dhigtaa marqaati beenaalayaasha raadi. markaas waxa laga yaabaa marka qaar waxyaabaha calool xumada oo carrada ka jira in la yiraahdo qaali annagu ma naqaan marqaati beenaalayaal iyo waxaas ku shaqeysto diintoodii gatee xageen kuwaas ka heleynaa. waxa laga yaabaa inuu yiraahdo qoran lambarkaas nin kale waa asaga marqaati beenaalayaasha kula raadi doonee waa gudoomiye marqaati beenaalayaasha ninka la waca asaga isku aadaabash. marka qaadiina waa kaas qareenkii looyarka waa kaas maxkamadii dadka shaqeysay waa kaas qaaligu wuxuu ogyahay ninkan inuu ku shaqeysto marqaati beenaalinimada inuu ku shaqeysto ogyahay asagana dadka u dira.